guddi ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo xukuumaddu ay u saartay khilaafka maalmihii u dambeeyay soo dhex galay shirkadda DP World iyo ganacsatada isticmaashada ka magaalada Berbera ayaa sheegtay inay dhameeyeen khilaafkaasi isla markaana ay soo gabagabeeyeen lana filan mar dambe soo laabto ugu horreeyna waxa amuurtaasi ka hadlay barsaabka gobolka Saaxil iyo wasiirada dowlayaasha wasaaradda ganacsiga iyo amniga waxaana ka mid ah hadaladoodii waftigan oo ugu yimid hawlihii dekada arrimihii ganacsatada DP dhaxmaray arrinta waxaan u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland dadweynaha kale ee saxaafadda naga dhageysanaya ganacsatada waa ganacsatada Soomaaliland waa lafdhabartii Soomaaliland waa ganacsatadii maalgelin baa la keenay waddanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleystay tiirkaas oo adkaa tiirkii ugu adkaa ahaa in dawladaha caalamku maalgelin Soomaaliland ku sameeyaan waa tiirkii ugu fiicnaa ee wax qabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta macaaradku si kale uga faa'iideystaan laakiin ma ahin ninna ahaa anaanile oo muddisho waxa laga soo saxo un baa Soomaaliland ka dhici kara ayuu madaxweynaha Soomaaliland jabiyay iyadoona dawladdeena la aqoonsan haddana maalgashigii caalamiga ayaan maanta keenay waxaan hiigsanaynaa horumar baan hiigsanaynaa in adduunkan la jaan qaadnaan hiigsanayna DP World iyo ganacsatadeenu waa mashaariicdii ugu waaweynaa ee inta Soomaaliland jirtay ka hirgalay waddankeena kolley waxyaabo yaryar way soo baxayaan waana la dhamaystirayaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle halkan sidii gudoomiyaha gobolka Saaxil sheegay wafdi ka kooban xubno golaha wasiirada taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska iyo la taliyaha arrimaha carabta iyo madaxtooyada Ibrahim ayaanu muddo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu sugnay magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ujeedada safarkeeguna wuxuu daaranaa inaanu soo xaqiijino oo hubino geedi socodka iyo hanaanka horumarsanay dekada caalamiga ee Berbera sida ay u soconayso iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay soo yare ifbaxayeen cabashooyinka Yemenii ganacsatada dekada Berbera ku xiran adeega ay dekadu siiso anagoo ka duulayna siyaasadda hufnay madaxweynaha qaranka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo isla markaana fulinayna waajibaadkii shaqada noo soo igmaday ee arinta dekada ganacsatada ku saabsaneyd muddadii aan joognay waxaanu kulamo goonigooniya iyo kulamo guudba la yeelanay cidii arintaas qusaysay waxaanu si buuxda isula afgaranay oo aanu soo afmeeray khilaafkii yaraa ee arrimaha adeega dekada ganacsatada daarana gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaana ka mid ahaa hadaladiisii salaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam shirkan sharaa'id oo halkan xarunta gobolka ku qabanayno maanta kulley sida ay wasiiradu hore u soo sheegeen guddi ayaanu ahayn madaxweynuhu u soo diray dekada iyo waxyaabo yaryar oo ka soo baxay guddiga wasiirada aniga oo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir dowlaha amniga oo hadda mas'uuliyadda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha mas'uuliyaddeedii haya maadaama wasiirkii maqan yahay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska taliyaha qaybta maareeyaha dekada oo isna fadhiya Ibrahim oo ka soo bixi xiriirka carabta ee madaxtooyada madaxweynaha ayaa wuxuu noo soo igmaday in aanu hawshaas dekada in aanu xogaal u noqono wixii aanu xalkeeda ka sameyn karnana aanu ka sameyno sidaas ayuu ahaa ujeedada socdaalka iyagu ee Berbera ama gobolka Saaxil aanu ku nimid wasiirada iga horeeyay baa tilmaamay wasiir dowlaha ganacsiga ganacsatada iyo arrinkoodu siday u dhaceen buu ka hadlay wasiirka amniga iyo sida loo nashuushadaynayo dadka qaarkii u nashuushadaynaya buu aad uga hadlay anigu hadii aan gudoomiyihii guddigan ahaa waxaan halka ku soo koobaya arintii aanu u nimid madaxweynuhu noo soo igmaday siday u soo afjarantay waqtiga waqti badanna aanay nagu qaadan run ahaantii haddii aanu ganacsato is aragnay oo la galay manaaqasho haddii aanu maamulka dekada oo DP World
aanu gaar isku aragnay haddii muxuu ahaa maamulka dekadaha oo muxuu ahaa maareeye ku-xigeenku uu mas-uul ka yahay hadda aanu muxuu ahaa is aragnay haddii aanu intiiba kulminay wixii muxuu ahaa waxaanu u aragnay wax aan muxuu ahaa la xaliili karayo si fiican muxuu ahaa noogu dhammaaday laakiin aan muxuu ahaa dadka qaarkii ay muxuu ahaa qalqalloocinayeen ama ay wax ka dhex doonayeen waxaan u sheegaynaa muxuu ahaa shacbiga Somaliland iyo cid kasta oo muxuu ahaa arrintan wax ka dhex doonaysayba arrintaasi inay u soo afjarantay si wanaagsan hadda ka bacdina muxuu ahaa dekada hawsheedii shalay iyo maanta iyo wixii imika ka dambeeyaba inay si habsamiya u soconayso waxna waa arrin maamul oo dekada maamulka dekadaha iyo maamulka gobolka iyo DP World oo muxuu ahaa dekada aynu muxuu ahaa heshiis kula gallo ku wareejinay ayay u taalaa iyo hawlaha amniga ayay u taalaa muxuu ahaa inay ka wada shaqeeyaan taas waa hawshooda waa arrin maamul annagu muxuu ahaa xalkii wixii arrinkii markaa taagnaa oo muxuu ahaa loo arkayo aad looga faa'iideysanay lana buunbuuniyey runtii wax weyn ma ahayn laakiin waa la buunbuuniyey cid baa ka faa'iideysanaysay ciddii ka faa'iideysanaysay muxuu ahaa dee mididoodiiba uus ku jabtay mididoodii uusbay ku jabtay run ahaantii waxaan leenahay muxuu ahaa arrintaas waxay ku soo dhammaatay muxuu ahaa guul isafgarad hadday tahay DP World maamulka dekadaha iyo gobolka iyo guddigayagii madaxweynuhu soo diray meel baanu muxuu ahaa isugu wada nimid sidaasaanu muxuu ahaa go'aan ugu gaadhnay in hawluhu sidaas ay ugu socdo cabdirashiid mubaarak cabdi cabdirashiid suul telefishinka caalamiga RTN magaalada Berbera